hadda soo xulay jidkada galmudug xildhibaanadii ayaa ku takrifalay xilkii halkii xili waa halkii xil oo beesha Siciid Bakar ay ka haysay beesha cid kale maaha nabdoon carshiin ila adeerka saaxiibka aabay saaxiibkiisa sharafka mudan laakiin waxaan ka cabanaynaa caddiga ugu sameeyay beesha Siciid Bakar waa uu qaadan weyno si walba oo si hoose iyo si maal heerisa aan u marno xaquuqdii aan beesha ku lahayn waxayna haddii uu ka qaado Siciid Bakar xildhibaan iyo beesha ama ku masuuliyiisa galmudug maadaama caddigaas uu sameeyey dhinac walbana aan u marno waxaan u sheegaynaa in aan marka horena canshiire inuu dub Bakar noqdo ama uu maamulo Bakar Siciid Bakar aysan u dooran haddeertaana uusan noqon meelaha siyaasadda oo socda arrimaha siyaasadda oo socda codsanayna canshiire shughul lagu wadayahay walaalkeen waa waalidkeen waxaan ka codsanayna inuu faraha kala baxo arrimaha siyaasadda Siciid Bakar waxaan kaloo u digaa u sheegaa odayaasha dhaqanka ee beesha Siciid Bakar ee sida hoose loola macaamulayo ee waxyaalaha aan mas'uulkooda ahayn ee maaragtay sheegama dhaqaale ah ama si kale loo isticmaalayo in ay ku ekaadaan xuquuqda dhaqan ay leeyihiin odayaal dhaqan leedahay dhaqankooda inay ku ekaadaan siyaasadda ay faraha kala baxaan maamulka siyaasadda ay faraha kala baxaan waxaan kaloo u digaa siyaasiyiinta Bakar ee xildoonka waxaan ka codsanayaa beesha Bakar siyaasiyiinta xildhibaanka federaalka doonaya inay hal albaab ka soo galaan Siciid Bakar faragelinta ay ku hayaan ay ka daayaan albaabka Siciid Bakar waa u furan xaqay u leeyihiin in la doorto codsi sharaf laha sameeyaan xilgada Siciid Bakar faraha kala baxaan intaas ayaan ka codsanaynaa si sharaf leh oo beel ahaaneed oo xuquuqda ay ku leeyihiin beesha inay ka soo doortaan si sharaf lehna naga helayaan ciddii ilaahay darajadaas u siiyey wayna heli doontaa ciddii ilaahay u qor inay maartay sheegeen xildhibaanada si sharaf leh albaabka ay mudan tahay naga soo galaan waxaan kaloo baaq u diraa ugaaska suldaanka dhaqanka siyaasadda u qaabishay saddexda sigaar guud ahaan waxaan ka codsanayaa in ay tixgeliyaan codsiga Siciid Bakar maanta ka soo baxay iyo faragelinta lagu haayo ay fiiriyaan tacaddiga lagu sameeyey waxaan sheegay mar labaad ku soo celinaa oo mar saddexaad ku soo celinaa oo mar afraad ku soo celinaa canshiire inuusan matelin Siciid Bakar inuusan u matelin Siciid Bakar waraaq uu qoray iyo erga uu qoray iyo mas-uuliyad Bakar uu sheegto oo Siciid Bakar ku matelo in aysan jirin bataatan waxaan si qaas codsi u diraa waxaan si qaas codsi u diraa maamulka galmudug madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo inta guddiga doorashada inta waxaan ka codsanaynaa in ay si gaar u fiiriyaan tacaddiga iyo maaragtay sheegayaan waxyaalaha ka socda faragelin iyo dhibaatada lagu sameeyey inay ka soo jawaabaan codsigeenaas inay ka soo jawaabaan caashadeenaas waxaan si qaas uga codsanaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre arrintaas inuu si gaar u fiiriyo xilliga uu maamulka hayaa ee arrintaas lagu dhacday haddeertaana xaquuqa ku leenahay inaan siyaasadda qayb ka naqano inaan dowladnimada qayb ka naqano inaan qarannimada Soomaaliya qayb ka naqano waxaan ka codsanaa arrintaas saddex sagaal inuu si gaar u soo fiiriyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ma jira hadda waxaan kaloo codsanaa dowladda federaalka mas-uuliyadda ay hayso khaasatan ra-iisul wasaaraha qaabka doorashada u socdo iyo xaquuqda beesha ay ku leedahay inay si qaas u fiiriyo aan ka codsanayna ra-iisul wasaare roble si qaasa maadaama isagu u xil saaran yahay inuu cadaalad furo maamulka doorashada waxaan ka codsanaynaa inuu si gaar u fiiriyo wixii hore noogu dhacay haddeertaana waxa socdo oo si gaar u fiiriyo haddii ilaahay faragelintana waxaan ka codsanaynaa inay naga daayaan dadka siyaasiyiinta lacagaha la ordaayo beeca wada dhaqanka gadanaya odayaasha gadanaya dhalinyarada gadanaya inay cadaalad ku soo baxaan ee xaquuqdooda doorasho darajada ilaahay ay si toos ku raadsadaan intaasaan kusoo koobayaa kaasi wuxuu cabdibaro qabeynayay shirkii isu yimaadeen maanta beesha Siciid Bakar danoodan ay hadlayeen